بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسن داود الملك السواد شوكتان ومركل يا برنامج كنا فلانقين تحكت عالمك تاريخ دو كويلا تنكا بيش فبراير سنة كلا بكون فري لباتن داود شقيمها نجا مدن وقيبت اللبات برنامج كنا وحين سجارة وجو دونا هدي الله أود الأورا لك نقطة دولة الصومالية أو فاهن رسمي أحكب بحسي قابك عندما تركيا أي دفاع دونان حيبها الصومالية يجودهان بدأ waxaa arintan ka hadli doona madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sidoo kalena waxa uu sharxi doonaa heshiiskii Soomaaliya iyo Turkiga ee difaaca ah ee ay wada galeen labada dowladood. sidoo kale madaxweynaha waxa uu ka hadli doonaa arrimo ku saabsan sida loo difaaci doono badda maadaama dowladda Itoobiya ay damac xoogan kaga jirto iyo waliba sidoo kale heshiiskan waxa uu kaga duwanaan karo heshiisyo kale oo horey loola galay qaar kamid ah dowladaha reer Yurub. bal waxaan idinku talagalay bal heshiiskan oo faahfaahsan maadaama marar badan aad u sugayseen dowladda Soomaaliya xog dheeraad ah aysan ka bixin inaad daawataan xogta uu ka bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. aragtidaada qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. heshiiskan ma isleedahay Turkiga sida loogu talagalay ay uga soo bixi doonaa oo u difaaci doonaa badda Soomaaliya? sidoo kale danta Soomaaliya hadda ugu jirto maxay tahay in heshiis lala galo Turkiga? aragtidaada waa muhiim, ha iloobin inaad la garayso nagu soo bir muuqaalkana share garay. ma hadsanid. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات ملك السوء أي جوغان وحان الشركة الجرائد قبطي إنان لسعود سيو maanta iyo xaaladaha dalka ka jira guud ahaan dadka Soomaaliyeed way og yihiin dalkeena dagaal ayaan ku jirnay, shabaab aan dagaal kula jirnaa, niman dhulkeena inay dhinac goostaan rabo ayaa ayana dagaal diblomaasiyadeed aan kula jirnaa, dhinac kalena dawlad dhisidii iyo dastuurkii ansixintiisii iyo dawladii stateki iyo hay'adihii dawladnimada in la dhiso ayaa ayada dhinac ka wadnaa. dalku marka sidaas ayuu dadaal ugu jiraa. waxaan rabaa marka maanta halkan u soo istaagay inaan sheego dadka Soomaaliyeed saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahad celinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen marka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. waxaan si gaar ah rabaa marka dadkaas faraha badan iyo dawladahaas faraha badan iyo hay'adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dawlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhax bixinay. waa dawladda walaalaha ee Turkiga. Turkida Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ah waa nagala dhaxaysaa oo ilaa qarnigii 14aad iyo wixii ka dambeeyay iyo wax lamida iyo waxa kale oo nagala dhaxeeya Turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufaheena gaarka. Turkiya waa dal caalamka na garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihiin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay macluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen. madaxweynaha hadda dalka Turkiga ka tagay ra'iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid ayadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oo la tagin ay tahay. gabdhaha ajnabiga ah ee Soomaalida aan ahayn ee hay'adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleen magaalada Muqdisho inay yimaadaan markii uu muxuu ahaa President Erdogan oo markaas ra'iisul wasaare ah iyo familigiisa ay yimaadeen oo xeriyihii barakacayaasha inta tageen carruurta Soomaaliyeed ay kor u soo xambaareen soo qaadeen oo kuwa jidka dhinaciisa ku ciyaaraya inta u degto madaxweynuhu ag fadhiisto dhahay xaalkooda ka warsado oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeen in badan oo kamid uu ka jawaabay. waxay ahayd dawladda kaliya ee mucaawanada dadka Soomaaliyeed ay siinaysay, dawladda Soomaaliyeed u dhiibaysay oo dheysay dadkiina adika taqaanaan meesha baahida ka jirta adika taqaanaan waa tanaan qabta. waa dalka kaliya ee maraakiib isdaba socoto 20 kun oo tan isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiibay u qaybiya dadka adika garanaysan sida loogu qaybiyo sida u kala duruufo badan yihiin.
waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget supportiga ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bangigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag ku soo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bangigeena dhaxal lacag geeyay ahayn lacag ku shuba maxaan ku raada markii amaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka oo dhan uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaar ah noogu soo gurmado xariye inta dalka gudihiisa ka dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku iraahday ciidankeeda inta gudaha ku tababaray haddana wixii qalabeeyay qalab casri ah waliba si ayadoo birigaas waliba cuna qabatayna saaran dalka qalab lama sii kala la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryar dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oo aanan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirta dekedaan maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idinla maamuleen airbortkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan muqdisho wasakh naga ah si aan u nadiifino waa idin nadiifinayna gacantooda darawaliin ay baabuurta ku wada qashin ku qaadeen oo kale sidaas daraadeed waa dalka noocaas walaalayaal maanta marka argagixisada gudaha nagula direen waxaad ogtihiin dhammaan dalkeena bad aad iyo aad u weyn ayaan leenahay badeena muddo 30 sano ma ilaashanin kalluunkeena iyo khayraadkeena waa la dhacayay wasakh waa lagu shubayay waxa sharci darraa oo dhan oo hub sharci darraa iyo balaayo sharci darraa oo dhan waa la marsiinayay caalamku markii wax ayaga xanuujinaya ay yimaadaan waana garab istaagayeen sida burcad badeedkii oo kale intaasoo kun oo maraakiiba barada la soo diray burcad badeedkii la dagaalameen waa joojiyeen wax fiican ay qabteen wax aad iyo aad u fiican ay qabteen laakiin burcad badeedka markii la dagaalamay kalluunkeenana waa la guranayay caalamku maruu yiraaho xuduudihiina badda lama yaqaano waa xuduudihiina badda waa kuwaan dhahno waa la yaqaanaa waa UN ka soo register gareyn mar kale haddana lama waxayna in badeena kalluunkeena la daldalanayo oo la dhacayo waan ogeyn in badeena muxuu ahay la wasakheeyo waa ogeyn in badeena muxuu ahay hub sharci darra ay balaayo ay maraan oo dhan waa ogeyn waxaasoo dhan wax fiican ma ahayn laakiin cid naga kaalmayso oo si dhaba nooga kaalmaysa maanaan helin annaguna sida markaa waa kalluunkana waa noo soo curanayaa biru noo imaanaya arrimaan kalena maalin baan joojin doonaa maanta xaaladdu way isbedeshay dadaa yimid ay dhahayo badiyaan nus qaadanaynaa waaba qaadanaynaaba kenya iyo annagaa isqabsanay walaa dadka deriska saaxiibadan kenya waxaan isku haysanay kenya waxay leedahay dhulkan biyahan annagaa iskala helahay biyo Soomaaliyeed waa Soomaaliya iskala laakiin waa qaadanaynaa nama dhahayn xuduudan isku haysan maya intay martaa iyo maya intay martaan isku haysan maxkamadda caalamka isla tagna maxkamadda waa soo kala saartay maanta annaga iyo Ethiopia waxaan taagan horta ma aha xuduud isku ma haysano boqolaal kiiloomitir dhul Soomaalida inay soo marto badda Soomaaliya timaado oo qayb kamid ah qaadato way waxaan isku haysano waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Ethiopia in la diriro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaay la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasoo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya badeena sidaan u difaacno hadda maanta Turki soo duushay oo Ethiopia ku duulayso ma rabo in la diriro ma rabo Soomaaliya gudaheeda in dowladda ajnabi ay wax isku diriraan ma rabo laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynayo dhaqaalaha badeena kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu Turkiga nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kastoo sharci darro ah oo badeena ka dhacayo oo caalamka effect gareynaya haday burcad badeed tahay hub sharci darro oo la marsiinay haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixisada dhaxmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dal kale saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano ma aha waan rajaynaynaa nimankan aan dariska nahay walaalaha reer Ethiopia inay kama dowladooda dadka reer Ethiopianka colaad suma qabla darisaan nahay laakiin dowladooda inay ka waantoodo dhulkii Soomaaliya qaar qaadanaya inay tiraaho
oo caqliga uu shaqeeyo waa rajaynaynaa colaad ayna imaan laakiin heshiiska maanta baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waay heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waaye بروتوكول بدن إيه هشيسية بدنا كسر ركب من دونه أو كسر تفاصيل بدونه وحين لكن هشيس كاس آخر كيس وحولها أو هدف قدام بيطلع سنة كبعد إيه وقت لما إذا قلنا جارسين وحيتاي عيدا بطء بيهن الدفاع كرنا يارنو أنت كهرسنا ولا لها إن الدفاع عن بدأ أو برعة بدأتك إيه كلوميسك الشرع الدرجة إيه قوة محاول حيابا illegal activities كهؤلاء الشرع عن وافق سنين ودن inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dawladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kale oo maanta hadda heelano oo annaga shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacaysana ma jirto cid doonno diyaar ma jirto marka waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateral ah oo gaar shakhsi ah intaan u heshiino naga saacida amuurahaas Turkiya waxay noqotay dalkii ugu horeeyay oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiis la galno oo aan arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskan ma xadidayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinaynaa magaceeda kula galino walaalayaal dagaal ugu jirnay inaan dhulkeenna argagixisada aan ka difaacno aan ka xoreyno maanta waxaan dagaal kale u galaynaa baddeena inaan ka xoreyno kuwa maxaan ku raadaay argagixisada ah ama sharci darrada dawladda Soomaaliya shuruucdeeda ku xadgudbaayo shuruucda caalamkana ku xadgudbaayo mas'uuliyadda nasaaran ee caalamigaana aan ku gudanayna hadii aan leeyahay heshiiska maanta baarlamaanka ka dhacay intaas dadka Soomaaliya waxa uu sheegayaa dhaqaale waa heshiis difaac Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya dawlad kale iyo dal kale oo lagu nacbaynayo ama lagu colaadinayo ama lagu la dirirayo ma jiro aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waa la badan yahay maanta golaha shacabka heshiisa la gudbiyay toddobaadka hore la soo galay markii aad xogkii isnaadii iyo wasiirka gaashaandhigay waxaa dalbatay inaad warbaahinta banaanka ay mudanayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed lama siinin waqti ay ku aqriyaan waa heshiis difaac Turkiga walaalaha ahaadaan laakiin waa dal shisheeye maxaa shacabka Soomaaliyeed laga qarinayay oo maanta golaha shacabka qorka looga sameeyay heshiiska dalka Soomaaliya ana madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dawladda iyo magaceeda iyo sovereignty-geeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay looma qarin sir iyo magaciisa ma aha dokumentigiisana official uu noqona gazeetku ku soo baxa dadka Soomaaliyeedna way arki doonaan madaxweyne aad baad mahadsan tahay heshiiska la ansixiyay baarlamaanka meelmariyay mabadda difaaca ku saabsan heshiis amniyo la dagaalanka argagixisada iyo gudaha difaaca Soomaaliya soo arrin kooxda badda Turkiya hore ayaan heshiis difaac oo argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo dhismaha ciidanka dhulka oo aan maxaan ku raahdaa oo u dhaqan galay heshiiska midka maanta ah badda iyo dhaqaalaha badda iyo difaaca badda oo ku kooban yahay waa mahadsantiin heshiiska ay wadaan dowladda Soomaaliya iyo Turkiga shacabka Soomaaliyeed wuxuu ku jahanbaysay ama heshiis oo difaac oo Turkiga oo ku aadan in ciidamada loo diro badda mise waa in ciidan dowladda Soomaaliya oo dhanka badda ah loo dhisaa marka shacabka Soomaaliyeed su'aal ku jawaabisay waa warkayga waa ku dhinac maray haddaan sheegay heshiiskaasi waa 10 sano ciidanka badda Soomaaliya ayaa la dhisaya dhaqaalaha badda ee Soomaaliyana waa la iska kaashanaya gabdhaha haye madaxweyne maraslihi kara heshiiska waxaa soo dedejiyay in Turkiga lala galo damaca Ethiopia kaga jira badda waa la dhihi karaa laakiin sida aan u sheegay heshiiskani kuma saleysna in Ethiopia heshiiskani muddo ayuu doodiisa iyo sheekadiisa ay soo socotay waa isku soo aadeen
saas waa sida loo dhihi karo laakiin heshiiskan muddaa laga soo shaqaynayay waqti dheer tafaasiishiisa iyo wixiisa iyo lasoo waday haye baan heshiiska dee aayado qur-aana ma aha oo waa waxa dadka la qoray sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu samayn karo iyo sida uu dhamaanaya kulli heshiiska u dhaxad yihiin waxbaa laga bedeli karaa haddii duruufo kala soo baxaan waa la bedeli karaa waxbaa lagu dari karaa waxbaa laga dhimi karaa isaga dhammaan la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal aan ku celiyo mar kale heshiiskan Ethiopia iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhex taagan awgeed looma sameeynin heshiiskan muddo hore uu soo socday waqtiga isku soo aaday ma ogi heshiis sanado laga soo shaqeynayo waaye waxa mushkiladda Soomaaliya Ethiopia ka dhex taagan kuma xirna cilaaqaad la malaha haddii mushkiladda Soomaaliya Ethiopia ka dhex taagan berri ay dhamaatana heshiiskan 10 sano waaye uu soconayaa hadii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum